halkani waa qubnaha TV ku soo dhawaada barnaamij wareedkeena xilligan qodobada aad ku daawan doontaan waxa kamid ah xogta rasmiga ah safarka madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ee dalka Djibouti oo la soo helay sidoo kale madaxweynaha magaalada Djibouti kulan kula leh madaxweynaha dalka Eritrea Afwerki iyo xogo ka soo baxay kulanka yeelanayaan madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud iyo madaxweynaha Eritrea sidoo kale madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud kulanka waxa ku welinaya madaxweynaha Djibouti Ismaaciil Cumar Geele isagoo ka dalbaday in loo furdaamiyo sidoo kalena wax laga fiiriyo dhalinta ku sugan dalka Eritrea xogo sira oo aynu ka helno kulankaasi ayaan idin soo gudbin doonaa xogaha kalena waxa kamid ah madaxweynaha dowlad goboleedka Puntland Saciid Cabdullaahi Dani oo weerar la yaab leh ku qaaday kooxda Aranjan xilli madaxweynihii hore ee Puntland Senator Farole uu dib ugu soo laabtay magaalada Garowe sidoo kale wasiirka arrimaha dibadda Xasan Shire Abgaal isaguna waxa uu bartiisa Facebook ku soo qoray in uu weerar toos ah ku soo qaaday madaxweynaha dowlad goboleedka Puntland Saciid Cabdullaahi Dani qodobadaasi waxaan ku eegi doonaa iyo weerar la yaab leh al-shabaab ay ku soo qaaday deegaanka Moqokori ee gobolka Hiiraan iyo sidoo kale sawirro baraha bulshada lagu faahiyay qaraxyo waaweyn oo lagu soo xiray gaari dameer iyo waliba sidoo kale gaarigaasi oo siday qoryaha loo yaqaan kuwa lagu shito dhuxusha xogaasi sidoo kale waxaan idin soo gudbin doonaa dagaaladii ugu dambeeyay ee ka kala dhacay gobolada Shabeellaha Dhexe iyo Hiiraan hadduu Rabbi idmo aynu ku bilaawno madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa tagay magaalada Djibouti ee dalkaasi sidoo kalena safarka madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud oo soo ifbaxay iyo xog rasmi ah oo laga helay safarka uu ku tagay dalka Djibouti ayaa waxay tibaaxayaan in madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud uu halkaasi wada hadallo iyo wada xaajood uu kula yeelanayo madaxweynaha dalka Eritrea Afwerki sidoo kalena madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud dhigiisa dalka Eritrea waxa ay inta badan ka wada hadli doonaan ciidamada ku sugan dalka Eritrea sidii loogu soo celin lahaa dalka Soomaaliya wararkii ugu dambeeyay ee ka soo baxay ciidamadaasi waxay ahaayeen in dalka Eritrea uu ku xujeeyay Soomaaliya inay bixiyaan lacag malaayiin oo lagu soo celinayo dhalintaasi sidoo kale madaxweynaha dalka Eritrea waxa uu hore u sheegay in dhalinyaradaasi ciidamada loo tababaray Soomaaliya ay lagu bixiyay qarashaad badan oo ku saabsan hadii lagu bixin lahaa hubkoodii iyo sidoo kale ee dareeska loo xiriyay iyo sidoo kale intii ay joogeen raashinkii iyo waliba waxyaabihii kale ay cunayeen in loo lacagayo sidoo kalena dawladda Soomaaliya ay bixiso madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud waxa uu dalka Imaaraadka Carabta ka codsaday in lacagahaasi ka bixiyaan maadaama cilaaqad dhow uu la leeyahay sidoo kalena agaasimaha Nismaad Maxamed Salaad isaguna dalka Qatar waxa uu tagay in arintaasi ay kala shaqeeyaan dawladdaasi sidii dhalinyarada Soomaaliyeed ee ciidamada loogu soo celin lahaa dalka Soomaaliya xilli madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud uu u gudbiyay madaxweynaha dalka Eritrea in xilligan Soomaaliya ay dareemayso culaysadii ugu waaweynaa aynu ku furan yihiin aagaga dagaal waa sidoo hadal ku dhigay madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud sidoo kale madaxweynaha dalka Djibouti Ismaaciil Cumar Geele ayaa kulanka qayb ka ahaa oo sidoo kale isaguna ku qancinayay madaxweynaha dalka Eritrea in dhalinyarada dib loogu soo celiyo Soomaaliya sidoo kale waxa la isla gartay in madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud iyo madaxweynaha dalka Eritrea inay isku yimaadaan kulamo kale oo looga arinsanayo arrimaha ku saabsan ciidamada ku sugan dalka Eritrea Xasan Sheekh Maxamuud waxa uu madaxda Afrikaanka la wadaagay in uu dareemayo culaysadii ugu waaweynaa abid isagoo sheegay in deegaano badan oo al-shabaab ay gacanta ku hayeen sanadihii la soo dhaafay in haatan ay la wareegeen ciidamada dawladda iyo dadka deegaanka ee la magacaaban Xawisley madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud waxa uu tilmaamay inuu guulo waaweyn uu ka soo hoyay dagaaladii ugu dambeeyay ay wada galeen ciidamada dawladda dadka deegaanka oo isgarabsanaya al-shabaab sidoo kalena waxa uu sheegay in howlgalladaasi dagaaladaasi ay ciidamada dawladda si la bijibaari doonaan haddii ay helaan kaalmo sidoo kalena waxa uu sheegay in uu doonayo ciidamada ku sugan Eritrea inay dib ugu soo laabtaan Soomaaliya si ay qayb uga noqdaan dagaalada lagula jiro al-shabaab madaxweynaha dowlad goboleedka Puntland Saciid Cabdullaahi Dani waxa uu weerar qayaxan ku qaaday kooxda Aranjan oo ay ahaayeen saaxiibo wadaag ee siyaasadda madaxweynihii hore Puntland Senator Farole iyo sidoo kale wasiirkii ugu awoodda badnaa maamulka Puntland waa Xasan Shire Abgaale iyo sidoo kale xubno kale oo la sheegay inay muhiim u yihiin kooxda Aranjan ayuu madaxweynaha Puntland Saciid Cabdullaahi Dani ku qaaday weerar la yaab leh sidoo kalena Saciid Cabdullaahi Dani waxa hore u sheegay in maamulka Puntland uusan gacanta u gali doonin waa dad uu sheegay in si gaar ah iyagu ay doonayaan inay maamulkaasi u iibsadaan kooxdani waxay horay kulamo la soo qaadatay madaxweynihii hore Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo agaasimihii Nisa mahad aniraade agaasimihii Nisa Fahad Yaasiin Xaaji Daahir iyo sidoo kale xubno waaweyn oo ka tirsanaan nabadii nolol waxay ka wada arinsaneen sidii Puntland looga saari lahaa madaxweynaha hadda talada haya Saciid Cabdullaahi Dani iyo sidoo kale sidii ay u soo saari lahaayeen nin iyagu ay wataan kooxdani
iyo Siciid Cabdullaahi Dani maalmihii la soo dhaafay waxa ka taagnaa khilaaf weyn oo u dhaxeeya sida loo wajahayo doorashooyinka Puntland waxa ay sheegeen in Siciid Cabdullaahi Dani uu ku fashilmay qaabkii uu wajihi lahaa doorashada qof iyo cod ee laga qabanayo dowlad goboleedkaasi sidoo kale waxa maalmihii la soo dhaafay magaalooyinka waaweyn ee Puntland ka qabsoomayay shirar ay yeelanayaan isimada iyo sidoo kale siyaasiyiin ka aragti duwan Siciid Cabdullaahi Dani iyagoo ku dhaliilaya qaabka uu wajahayo doorashada uu sheegay qof iyo cod in laga qabanayo dowlad goboleedka Puntland sidoo kale waxa Puntland dib ugu soo laabanayay siyaasiyiinta waaweyn ee Puntland ee ka aragti duwan madaxweynaha talada haya Siciid Cabdullaahi Dani waxay ku dhaliilayeen in uu wajahayo qaab uu doonayo inuu dib ugu sii joogo walibana muddo kororsi uu sameeysto waa sida ay hadalka u dhigeen markaana haddii aynu eegno dagaaladii ugu dambeeyay ee ka kala dhacay masaajid Cali Guduud oo ka tirsan gobolka Shabeellaha Dhexe iyo sidoo kale deegaano ka tirsan gobolka Hiiraan haddii aynu ka hormarno deegaanka masaajid Cali Guduud waxa gudaha u galay ciidamada dawladda oo kaashanaya kuwa deegaanta sidoo kalena waxa iska caabin kala kulmeen dagaalamayaasha Al-Shabaab halkaasi waxa laga soo warinayaa qasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac inuu ka dhashay dagaalkaasi oo soo kala gaaray labada dhinac ee dagaalamay waa Al-Shabaab iyo ciidamada dawladda oo kaashanaya kuwa deegaanka sidoo kalena afayeen u hadlay maamulka Hirshabeellana waxa uu sheegay inay si buuxda ugu la wareegeen deegaanka masaajid Cali Guduud oo uu sheegay in haatan ay ku sugan yihiin ciidamada dawladda iyo kuwa loo yaqaan macaawisleyda afayeenkani sidoo kale waxa uu sheegay in ay iska caabin xoogan kala kulmeen Al-Shabaab oo xalay uu weerar xoogan ka dhacay deegaankaasi sidoo kalena ugu dambeyntii waxa uu sheegay in deegaanka si buuxda gacanta ay ula wareegeen ciidamada dawladda oo kaashanaya kuwa deegaanka gobolka Hiiraan waxa ka dhacay weeraro xoogan oo ay geysteen dagaalamayaasha Al-Shabaab weeraradani waxa la sheegay in Al-Shabaab intooda badan ay ku soo xireen gaari dameerka nooca loo yaqaano oo ay ku soo xireen bambooyin iyo qaraxyo waaweyn oo ay doonayeen in ay ku weeraraan mid kamid ah fariisimaha ugu waaweyn oo ciidamada dawladda iyo kuwa deegaanka ay ku leeyihiin deegaanka loo yaqaano Muqukari oo hoostaga degmada Buulaburde ee gobolkaasi Hiiraan wararku waxay sheegayaan in ciidamada dawladda ay qaraxyadaasi waaweyn ay fashiliyeen ayna ka hortageen sidoo kalena Al-Shabaab ay damacsanayeen inay gudaha u galiyaan deegaankaasi sidoo kale xogtu waxay sheegaysaa in Al-Shabaab sidoo kalena ay qorsheynayeen in ay u sii gudbaan magaalooyinka waaweyn ee gobolkaasi oo ay ku sugan yihiin xubno ka tirsan dawladda Soomaaliya oo ay ugu horeeyaan wasiiro iyo xildhibaano ka tirsan golaha shacabka oo iyagu qayb ka ah howlgallada looga sifeynayo deegaanada gobolka Hiiraan Al-Shabaab xildhibaanadan waxa kamid ah xildhibaanka aftahanka waa Cabdullaahi Maxamed Cali Sambalolshe oo isagu ku sugan degmada Maxaas ee gobolka Hiiraan sidoo kale Al-Shabaab iyagu wali waxay qorsheynayaan inay weeraro waaweyn ay ka geystaan gobolkaasi Hiiraan balse maalmihii ugu dambeeyay ciidamada dawladda oo kaashanaya kuwa deegaanka waxa ay deegaano muhiim ah oo intooda badan ka kala tirsan gobolada Shabeellaha Dhexe iyo Hiiraan ay kala wareegeen dagaalamayaasha Al-Shabaab wararkii ugu dambeeyay Qownaha TV xilligan waa naginta